السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. magacayga waa canab magacayga waa Fadmo. maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno clip yar oo ku saabsan lifestyle-ka صح. ya waxaa is weydiina marka maxaa sababaya inay dhib nagu tahay inaan bedelno lifestyle-keena ama nolol maalmeedkeena. waxa ugu weyn saddex wax oo dadka ku adkeeya inay nolosheeda bedelaan. number 1 shakhsiyadaada. number 2 صح. maxaa la dhahaye meesha kasoo jeedid صح. iyo statuskaaga oo ayadana noqonayso levelka aad tahay qof oo lacag leh ma tahay taajir ah ama lacag normal lacag haysto shaqaysto noloshiisa wax fiican samaysan karo mise waxaa tahay qof oo faqri ah. baarista waxay dhaheen dadka say u kala nooli ama say u kala taajirsan yihiin ama siday u kala lacag haystaan ay u kala nolol fiican yihiin. taasna waxay ku jirtaa qofka hadduu oo faqri yahay ma helayo waxyaalaha dadka kale heli karaan qofka taajirka ama loo heli karo ma helayo soomahan dhaqaalihii u saameynaynin inuu soo gato waxyaalaha qaarkooda soomahan oo caafimaadka u fiican kastoo qofkaas ogyahay oo kale inuu qudaarta oo kale inay ka qaalisan tahay meelaha qaarkooda ama fruitiga ama waxyaalaha oo caafimaadka u fiican way ka qaalisan tahay marka danta aad ku qasbayso inuu soo gato waxyaalaha qofka u fiicneen. therefore waxaa loo dhahaa mar walbo dadka oo lacagta haysto way ka cimri dheer yihiin dadka oo faqriga ah. waana wax oo example ahaan hadda markaa fiirino aan arki karno wadanka ka imaanay oo kale dadkeena way ka cimri gaaban yihiin hadda wadankan aan ku noolnahay sida Norway kale. صح. midaasna waxaa saameynayso dhaqaalaha waa mid example dhaqaalaha si loo kala haysto. midda labaad waxay noqonaysaa nolol maalmeedkaada ama caadadaada saa ku dhaqantid waaye soomahan oo maalin walba waxaa sameynaysid taasne waxaa waaye waxaa ku dhaqamaysaa autopilot marka autopilot waxaa la dhihi karaa waxaa samaysid maalin walba oo aanan ka fikraynin wax fikir kuma sameynaysaa ogeyn sida markaad soo qaadatay inaa maalin walba bariis la cunto hadaa la qabsatid waa caaday ku noqonaysaa ama hadaa dhinac kalena oo loo bedeli karaa oo haddii positive oo haddii aad u baratay maalin walba inaad lugaysid wax walba soo kacdo lugaysid oo kale taasna autopilot ay ku noqonaysaa caaday ku noqonaysaa oo ku dhaqmaysid mar walba waxaan ka fikiraysid ma noqonayso. maxaa sababi kara marka inaad bedeli karin nolol maalmeedkaaga maxaa waxa ugu weyn oo kugu adkeyn kara maxay tahay waa shakhsiyadaada waa inay kaa imaataa waa inay go'aan adag leedahay waxaan waa inaad rabtaa niyadaada ka imaataa waxaa kaloo sababi kara sida aad sheegtay laakiin mid ugu weyn oo isdhahayno isbedel ku sameyn kartaa nolol maalmeedkaada waxaa waa aqoonta. haddii xataa qof oo dhaqaale haysanin aad tahay laakiin aqoonti haysatid sida oo cuntooyinka ku saameyn karo noloshaada ama hurdadaada wax walba noloshaada saameyn kara haddaa og tahay sidee noqotaba waa bedeli kartaa haddii aqoonti haysatid sooma waxyaalo kale raadinaysaa. marka midda ugu dambeyso ma isbedeli kartaa dhaqan caadeedkaada ma bedeli kartaa أنا حاسة لا وبدل كرتا. yes وبدل كرتا. dadka أنا waxaa kula talina horta wixii aqoonta ina interest u haysatiin oo aqoonta raadsatiin oo hadda isweydiisid aniga waxa cunaayo afkayga gelinayo maxaa iga imaanayo taas su'aashaas xataa kaliya haddaa isweydiisid waxyaalo badan aa kugu soo kordhayo soomaal adoo taasaa wax aad ka bilaabi kartaa inaad su-aashaas isweydiisid maxaa afkayga galayo jirkayga se u saameynaysaa waana helaysaa information hadda waqtiga informationka ku jirnaa sooma wax walba waa haddaa isku daydid wixii kuu fiican wax walba oo soo qabanaysid waa inaad qiimeysaa horta waxaan maxaa faa'iido ii leedahay maxaa ka faa'iidayaa waxaan aan cunaayo markaa soo adeeganay sidoo kale
isku day dukaanka markaa gashid adigoo jecel ka fogow waxyaabaha oo caafimaadkaaga as leedahay uma wanaagsano wixii as dhehaysa caafimaadkaaga u fiican tahay qaado marka waxaa idin leenahay nagula raaxaysta biyuugan quruxda badan maxaa la dhahayay meelaha oo isku day indhaha u roon maskaxda u roon deganaanshaha ka helaysid farxadda ka helaysid inaad tegtid waa ku ordi karnaa hadeertaan meeshaan waxaa waaye ani Faadumo kaliya joogno ya waa ku jiim gareyn kartaa waxa rabta ku sameyn kartaa marka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh